sida laga soo xigtay dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Al-Shabaab ayaa u dalaacday una gudubtay laanta ugu weyn uguna qanisan shabakada argagixisada ah ee Al-Qaacida. Al-Shabaab oo tababartay boqolaal dagaalamayaal ah ayaa sanad waliba dakhli ahaan u hesha in ka badan $100 milyan iyaga oo adeegsanaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo sharci darro ah sida lagu sheegay warbixin la soo saaray. dagaalamayaasha kooxda oo gulufkii ugu xooganaa uu haatan ku socdo ayaa sida laga soo xigtay majallad lagu magacaabo Long War Journal waxa ugu sareeya kooxdaasi oo go'aanada muhiimka ahna gaara 4 shaqsi oo la sheegay inay yihiin milkiilayaasha kooxdaasi. ninka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa Abu Cubayda Axmed Cumar, xilli sidoo kale loo yaqiinay Axmed Diiriye Abu Cubayda waa amiirka guud ee Al-Shabaab. xilkaasi waxa uu qabtay kadib geeridii Mukhtaar Abu Zubayr bishii Sebtembar 2014 uu Mareykanku dilay. ka hor inta aan loo magacaabin amiirka guud, Abu Cubayda waxa uu madax ka ahaa wax u muuqday wasaaradda arrimaha gudaha Al-Shabaab, amiirka Al-Qaacida ee gobolka iyo xubin sare oo Al-Qaacida ah. ninka labaad waxaa lagu magacaabaa Abuukar Cali Aadan, waxaana la rumaysan yahay inuu ka mid yahay ku-xigeenada guud ee amiirka Al-Shabaab. waajibaadkiisuna waxaa la sheegay inuu ka mid yahay isku dabaridka qorshayaasha militari iyo amniga, isaga oo ka wakiil ah Abu Cubayda. magacyadiisa afgarashada waxaa ka mid ah Ibrahim Afghan, ma ahan horjoogihii horey loo dilay ee Ibrahim Afghan lagu magacaabi jiray oo isla Al-Shabaab ay iyagu dileen, balse magacaasi ayuu hadda qaatay. xogaha qaar waxay xusayaan inuu yahay qofka koowaad ee ugu dhow Abu Cubayda. ninka saddexaad ee ka mid ah shakhsiyaadka ugu awooda badan Al-Shabaabna waxaa lagu magacaabaa Mahad Karatay. waa sarkaal sare oo ka tirsan Shabaab, wuxuuna ku fadhiyaa golaha ugu weyn ee hoggaanka lagu magacaabo Golaha Shuurada. Karatay ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu ka mid yahay ku-xigeenada guud ee amiirada kooxda Al-Shabaab. sida ay aaminsan tahay dowladda Mareykanka, Karatay waxa uu sidoo kale awood u leeyahay inuu maamulo amniyaadka amaba garabka amniga gudaha ee Al-Shabaab ee dilalka u qaabilsan kooxda iyo sidoo kaleba waaxdeeda maaliyadda. Karatay waxaa loo aqoonsaday inuu yahay maskaxdii isku dabaruday qorsheynta weerarkii lagu hoobtay ee 2015 lagu qaaday kulliyad ku taala magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, kaasi oo lagu dilay ku dhowaad 150 qofood. ninka afraad ee ugu dambeeyana waxaa lagu magacaabaa Jihaad Sarwaan Mustafa, oo sidoo kale loo yaqaan Anwar Al-Amriki iyo Amiir Anwar. waa muwaadin Mareykan ah iyo hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab. waxaa la rumaysan yahay hadda inuu mas'uul ka yahay qorsheynta howlgalka. waxaa loo badinayaa inuu yahay hogaamiye ka tirsan garabka qaraxyada. waagii hore waxa uu sidoo kale gacan ka geystay isku dabaridka tababaridda howlgallada warbaahinta iyo qoridda dagaalamayaasha ajaanibta ah ee kusoo biiraya Al-Shabaab ayaa lagu yiri warbixinta la soo saaray. Mustafa ayaa lagu waramay inuu ahaa wakiilka gaarka ah ee gudaha Soomaaliya u joogay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri, kaasi oo ciidanka Mareykanku ay ku dileen howlgal ay ka fuliyeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.